Hello guys, it's me Ryan. Today I'm making this video to clarify something, and I want to talk English because I want you to understand me. So you guys listen to me and give me your attention. If you want to know more information, that's not your business. But I want to tell you, my point is, me and Andres, we don't have relationship now. We are friends, okay? And everything's done. So actually, and don't bother him, guys, please. Why are you threatening him? My people, I'm sure you are choking you guys, but don't threaten him and don't ask a lot of questions because it's something private. And why you care about him? Nothing. So please don't threaten him, don't ask him a lot of questions. If you want to know more information, that's not your business. Like, actually, I'm shocked. Like, he sent me message, you're asking me a lot. And if you want to know information, that's not your business. If you want to talk another things, if you want to talk about business, he's public figure. You can talk to him, you can take him fun. But we are not bad people. Why you treat him like we are bad people? We are not like, he's my brother, he's my friend, okay? And we have a now good friendship. I think you understand everything. So please don't judge him outside. A lot of people I see, like you said, like he's not a good person, he's cheating our sister. Who tell you? I tell you like he was cheating me? No. I tell you about him? No. So why are you like judge me outside? Please don't judge him outside. Don't look him personally life. He take his moment and he's enjoying his life. Don't look my broken English, okay? That's my English. So it's my point. Please don't threaten him. And if you want to talk to him, if you are his fan, you can take him fun, you can text him, you can talk to him, but know about me, okay? He's my friend. So guys, I hope you understand, all of you guys, and let him enjoy his life, okay? Don't judge him outside because you don't know about him personally, okay? So love you guys. See you next time. If it's your first time gonna watch me, my channel, subscribe my YouTube channel, and see you next time. And we talk to my negative language Somali next time. Love you. And dadka Somali fahmin inshallah one day Somali ku fahansiin doona waxa ku hadlaa. Laakiin hadda idin sheegi karaabo waxaan dhahay yani nabadgeliyo dad waxa jira qoraalo oo qora asaga oo judge gareeyo banaanka ka judge gareeyo oo markay arkaan su'aalo weydiiyo waxaas khalad waaye asaga noloshiisa u daaya iska raaxaysto. Aniga Rayaan Bajaaj ay ugu barateen aniga la hadla, okay? So marka waxaan leeyahay nabadgeliyo waa qof aad u fiican. Haddana waxa friend aan nahay inshallah hadda xiriir lahayn everything meeshaas ku dhamaadeen. I hope inay wada fahanteen ina muhiimada in la fureen kale ina ogaata aragtidna waxa waaye Rayaan ma la furo mise waa la qabaa. Hadda ku sheegay barina waa ku sheegayo le waa la furay layma qabo. Just hadda waxaan nahay dad saaxiibo friends ah, okay? So I think inay fahanteen. waxaana ka xumaanaya I hope yani ina iska dhaaftaan. waa ka xumaana ina qof ani magacayga ad yani ku attack gareysaan. Please naga daaya. marka waxa waaye inshallah ta'ala fursada u way uga soo hadlo haddana waxa ugu kalif inaan la soo hadlana daruufo jira awgeed because Soomaali aad bay u falan tahay magaalada soo iska socdana walaasheena cheating gareysay maxaa la dhahayo waxa ku sameeyay qalada ku sameeyay like a lot of things waxyaabo badan oo weydiiseen. So please guys stop su'aalo iyo war hadartiin maalo ba social media new drama ka socdo dadka new drama ga soo socda naga dhaafa hore u sii socono. I hope inay fahanteen waxa waaye hadda adiga aadan fursad aad dadka aad ku jajgareysa aadan haysi yani aad qoraal ku qorto dad waxa jira ama shaqo kala qabaninbo. So marka waa kaasa qoraal aad soo qorto waxba kama dhibaayo. anigu waa ogahay waxaas inay kaftan tahay, waxa ogahay inay war tahay, laakiin qofkan waa qof ajnabiya ma fahmaayo problemka anaga aan comment isku qorno yani ayaga big deal leedahay laakiin anaga big deal ma lahan. So please ka dhaafa dhibka. See you next time guys. وإذن سلامي أصحاب ريان بجاج فانو لفرق فهلا فانو لفرق ما قلنا ما فهمتين هذا البدن نهم بوحشو
هذا قفكة سأوجي دينه بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما بيها وملها فاهمين وقصة ليفل كسدرتان ما دام أنا ريان بجاج كحرنا هاي وأنا ريان بجاج وإخاذ أنا ما نسيت والله بدنا يحيو إذن ترين أنا وحن قاتل فول باكج وهل شيء كما قلنا ما فهمتين كلنا ما ود أركدونتين إن شاء الله before كينا وأركتين after كينا وإيجي دين ما شاء الله thank you ولا شيء ريان دوان سامي لفكو وجبسي وكسود عيس قصقص كنا نيلت كبر حيسين وجدين ألابتنا وجدين عملنا ساعات ويهم ونوي كدي واسقوننا نادي لا إله إلا الله فولح ما أنصمرنا إله ونموتي ماشي قفك أول جدين هرت أنا وكودها الحمد لله ألابتن سي ومات إيه أنا وكلا توتر بذنبه وأنا كلا مقنين فانتين فول باكج يا أو حدا داربتد إنا قروح بناتيدو ددك قروح بناتيدو سان أكسو تكتد ريان بجاج لسه حريرو فول باكج كاga iska qaado kaale iska arago camanku iska iskuusano gabadha intee ka imaatay intee ka soo baxdo hal u dhama fahanteen kubka ka sii daran gacmaha hibiska full package ma fahanteen achaachala rayaan bajajda ku xirantay sana oo ekaanay ma fahanteen full package bal qaatay ma sha Allah hadee hadal badan ha ma buuxshoray Soomaali u dhahdo ma fahanteen full sida aniga qaatay filter waay filter aadin saaran filter miya waxaan mana ko qarto ma fahanteen qof dhan oo nool dhan halooyo filter waxa la ma jirtay lacagta hala quuro hala isqurxiyo naftiina marka isli maray waxaan isdhaha waa dadkan waxay ku fiiraan gaarash ama isku dhacaan ana la isjeclaado ma fahanteen soo yaacahay war badan wax ma taraay lacagta hala quuro naftiina quruxsada ma sha Allah دسا أركتان قبل result في عني نوسو على 3 days result ما شاء الله طبعا بروحان دمينا إذا ما كنت هلوك إلا قعان إلا وجني صوت إيه ما تصور كذا برتاس إنسو صارايا ما شاء الله وحاك لو رباني دي شيغو إن ألابتكو بكعيلني 3 days result وجهي قعناها لوغها هدا أوباهان تاميل على الميشة جوكتا كيلي نمبر ذا ميش كسو قردون اللحرير هدا جوكتا يوروب بليس وإذن بريا ريد جرماني سويدن هولن نوروي نما لبا نمبر إنسو قلنا ميشان إن شاء الله إن نمبر كلو فيلان inta saddexdaas number reer Yurub oo dhan la xiriiri kartiin soo marka gabadhan aa u jeedin wajiga u cayiliya ayadana sidoo kale before sawirkeeda meesha saaran yahay afterna waa kaasa sadar muuqdo su'aalka dhanta cayilka inuu qurux yahay waa u jeedin ya gabdhahana ma sha Allah gabdha aad u fiican waa result oo ii soo celiyeen dadka qaar wallahi marka cayiliya igu boodaan resultiga ma fahanteen muuqaal in laga duubo ma yaaba wallahi waa ful xumaa jirta la dhaha ay dhaayeen ma fahanteen soo marka kaasa insha Allah alaabtu waa idin soo dhiibay UK iyo reer Mareykan soo marka kaasa insha Allah taala alaabtan waa alaabti waxa waa hibska waa ma fahanteen ana laga hadli karin hadda soo baxday sidoo kale waxa rabaa inaan idin sheego dad badan ay weydiinayaan hibska labada saliid oo isku isticmaal qasam iyo kareenka tan UK oo socota waa tii wajiga cayilinaysa 3 days resultiga hibska originalka ma sha Allah waa kaas alaabtaas waa kareenka saliidada ay weydiiyay isku isticmaali karnaa kan isku isticmaali kartaa teeda kale saliidan gooni yani kareen u tahay kan kalena gooni waa soo labada qofood yani dad qofkii raba isku darsan karo labada xabo isku isticmaali kartaa daartan waa kala isticmaali kartaa warka waa laba kareen oo shaqo kala gooni qabtaan waa qof laba waqti qada isku cuno kale يعني هل وقت 2 times عنو كلا ما فهمتين سو marka dadka u maleeyo oo Europe joogo UK joogo u maleeyo yani in la isku isticmaalna qasabtaas qasab ma aha ogow numberka UK inta soo gelin doona waa taas alaabta qaar ka dambe UK yaa ay soo socotaa hibska waqtana tii kubka iyo wajiga cayilinaysay insha Allah tan Mareykan u socotaa yaa waxa waaye anti agent iyo waxa soo ma fahanteen soo reer Mareykan 10 bil ugu horeysay seela loo sameeyay waqtigooda wuu dhamaaday insha Allah hadda waxa seel u sameeynayna UK iyo Holland iyo Germany dadka joogo labada number oo Europe naga soo wici kartiin Finland sidoo kale tadaartiin waan la soo xiriiri kartiin laakiin seel ma jiro ogaada soo marka kaasa guys waa idin jecelnahay hadda rabtiin product tayo leh numberadana meesha ku qoran yihiin bye bye